waxyaabaha iminka faliga wax ka mid a ee madaxweynaha u soo jeedinayo dikretadan magacaabista markuu qorayo lahjadan ha la bedelo erayada la isticmaalayo waxaa leeyahay madaxweyne ha la bedelo ha lagu bedelo markaan arkay fariidnimadiisii markaan arkay xariifnimadiisa qaadqaadista markaan ku qancay guulwadanimadiisa waxaan garwaaqsaday inuu xilkaa gudan karo ka soo bixi karo maxaad ka wadaa markaa fikradada erayada ha lagu bedelo markaan arkay xil gudashadiisa markaan arkay daacadnimo markaan arkay kartidiisa waayo waa beenin tal midna muu arag madaxweynuhu ku qorayo waayo saad odhan kartaa soo qofkan ma xulan isagu maba yaqaanaa lagaa yidhi ninkan uu leeyahy kartidiisaan arkay waxaan arkay xilkasnimadiisa waxaan arkay kiisan maba garanayaa lagaa yidhi si aqoon bawle miyaanu madaxweynuhu xaq u lahayn qofkan siduu ku xulanaya hadda soo kan maaha madaxweynihii qofkii siduu ku xulanaya sidaad weydiinaysaa laakiin waxaan kuu sheegaya dadkanuu magacaabayo saad ku ogaatay jaamaca dadkanuu magacaabayo inaan qaar badan aqoon u lahayn waay ayaan ku ogahay kuwa aqoonta u leeyahayna waa kuwan aan leeyahay waxaa ku fiicanta dikreetada madaxweyne aad ku qorto markaan arkay fariidnimadiisa markaan arkay xariifnimadiisa qaadqaadista markaan ku qalcay guulwadanimadiisa waxaan ku qalcay waxaan garwaaqsaday inaan u magacaabo xilkaa erayadaasaa kuwa saxaa ah ee dadka lagu magacaabayo tilmaanta saxay waa taa maaha karti maaha aqoon maaha daacadnimo maaha muwaadinimo maaha waxaa wax lagu magacaabo waxaa maaha waa intanaan sheegayo markaa waxba been aynu isu sheegna ma taraysa oo aynu isla garanaynaay laakiin ha lagu bedelay inta dikreetada gudaha maamulka in badan baad ahayd oo xogayaadahay waxaad ahayd mas-uul dhan oo golaha dhexaa hogaaminay maxaad markaa u sheegi weydaa dhaliilahood markaa u sheegaysaa ada iska sidan un bay ahayd laakiin markaa indhihi aad ku arkaysay indhihi aad markaa ku arki weydaad marka ku eegaysaa maxay tahay jaamacadu ilaa shacab baa ku daawanaya adeer waxa weeye maalintaana ilaa maalintaaba warqadda sidan baa loo qoraya maalintaana hoos baan u sheegi jiray waay hoos ayaan u sheegi jiray maantana saraan u sheegaya yaad u sheegtay ma madaxweynihii mise kale maalintaa hoos baan u sheegi jiraa ku yidhi maantana saraan u sheegaya waayo wixii way soo noqnoqdeenoo markaad hoos sheegtay wixii la sii socdaanu dee markadaba waad qaylinaysa markaa sida wax loo magacaabaa eeg dikreetooyinkan imika wax loo magacaabayo waxay sheegayaan markaad kusoo duubto in merit qofka lagu magacaabayo mana aha merit waxa lagu magacaabaya qofkii waa farsamo kale waxaa lagu magacaabaya maxaad ka wadaa farsamo kale dee waa farsamo kale oo qabiil iyo halkan wax ka taraya iyo waa sidan iyo waa kan iyo tusaale wanaagsan baa ku siinaya imika baankii dhexe saakayaa loo dhiibay gudoomiye cusub baa loo magacaabay waa ayo gudoomiye cusub ee loo magacaabay who he is backgroundkiis waa maxay weligii baan maka soo shaqeeyey agaasimo guud baa la magacaabay weligii baan ma arkay weligii meel baal iyo wixisa laga shaqeynaya ma arkay waa injineer ninkan baanka loo magacaabay laakiin soo ma ogi jaamac taariikhda dunida waa wax ku cusub oo bini aadamka adduunka joogaan hore uga dhicin injineer baa loo magacaabay laakiin maamulku soo ma hago shaqada oo maamulku qof maama miya adduunka intaa leeg dowladaha jiraa way ka badan yihiin 200 la soo heli maayo dunida intaa leeg ilaahay abuuray nin madaxa oo ummadu madaxa oo nin injineera baan gudoomiye central bank weliba u magacaabay gudoomiyaha central bank uu ka sii culus yahay gudoomiyaha baanka ganacsiga caadiga
wuu ka culus yahay waa ninka dhaqaalaha waddanka ilaaliya waa ninka karasiga waddanka ilaaliya waa ninka hantida muwaadiniinta ee baananka la dhigto ilaaliya ka mas-uulkaa baanankaa la dhigto intaan inay waxooda iska qaataan iska yaali ma aha waa ninka xidhiidhada baananka kale adduunka la sameeya taariikhda hore umay dhicin qof aan khibrad u lahayn baan oon soo marin oo guddoomiye laga dhigaa muuse ka horto maynaan arag kaaga sii daraato hadduu labada qof miduu soo reebi lahaa cilman qabeen labada qof hadduu miduu soo reebi lahaa cilman qabeen ka kalena uu ka sii liitaa ee agaasibaa ka dhigay laakiin anagu caddayn ma hayno siifiyadiisina maananay aduu siifiyada mad aragtay adeer soo waraysa dadkaan saxafiyiina baaradee may qofka documentiskiisa ku baara adeer baaroo raadiya waa mas-uuliyaddiina ummadda ilaa u caddaysaa wax oo raadisaan hay mas-uulka la magacaabay marka laga yimaado xubnaha kale uu magacaabay ka war dee tusaale wanaagsan baan ku siiyey halka u muhiimsan waxay waa baanka dhexe oo central bank marka central bankiin labadaa xubnood u magacaabay wuxuu yidhi ciridkaan arkaya ilkama soo jeedaan ciridkaan arkaya ilkama soo jeedaan ninka maanta u magacaabay baankii dhexe nin injineera ee guddoomiye central bank injineerkaasoo u noqo ya anigu jahliyad ka weyn garan maayo jahli ka weyntaa heeradee oo nin madaxi uu ku kaco garan maayo adduunku intuu abuurnaaba dhala soo sheegi maayo nin madaxo qaladkaasoo kale ku kacay wallaahi haddii taariikh dalbaan waxaa isleeyahay waa warse qabaaya laga soo heli maayo taariikhda bini aadmiga nin mas-uula oo madaxa oo khaladkaasoo kale sameeya